wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay socdaal maanta ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta halkaas oo ka bilaabi doono hawlgallo la xiriira dhinaca maalgelinta ee Soomaaliland. waxaan u baxayaa safar aan ku tagay dalka Imaaraadka Carabta anigoo sii maraya dalka Ethiopia hadhowna ku soo dambeyn doona hadii alla idmo safarkaasina waxa uu la xiriiraa arrimaha xagga maalgashiga iyo ganacsiga sida laga warqabo dalka Imaaraadka Carabta waa dalalka ugu horeeya ee Soomaaliland ganacsi iyo maalgashiga ay wada leeyihiin marka arrimo la xiriira ayaan u tagayaa intaan joogo dalka Imaaraadkana waxaan rajeynayaa inaan hawlgallo arrimaha ku wajahan aan ka galo dalka Ethiopia aan marka dambe ku soo dambeeya hadii alla idmo oo kale waxa uu ka hadlay kulamo istaba jooga oo ay la yeesheen koox farsamayaqaano madax bannaan kuwaas oo ay ka wada hadleen shirkadda Bolora iyo qaabka ay wada hadleen xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan dhinaca maalgelinta deegaanka magaalada Berbera isagoo ka hadlaya kulamadii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa hawlaha shirkadda Bolora ayaa waxa uu yiri toddobaadkan waxaa dalka yimid oo muddo ilaa 4 cisho ah aan wada shaqaynaynay koox khubaro ah oo farsamayaqaano ah oo isugu jirta looyaro iyo injineero iyo dad kale oo aqoon xeel dheer u leh xagga arrimaha dekedda oo madax bannaan oo anagu dawlad ahaan aanu qabsanay oo kareysanay markii aanu la yeelanay wada hadal dheer shirkadda Bolora oo aanu booqasho ku tagnay dalka Faransiiska waxa kale oo aniga iyo wafdi kale oo gudoomiyaha maarayaha dekeddu ka mid yahay iyo wasiirka khaarijiga aanu tagnay dalal Afrika oo dhowr ah oo Nigeria ka mid tahay Congo ka mid tahay markaanu arrimaha soo eegnay shirkadaas halkay ka shaqeyso hawlaha ay qabato waxaan markaa u baahanay khubaro madax bannaan oo talana siisa anaga dabeet qoladaas maalin dhoweed bay noo yimaadeen 4 maalmood baanu shiraynay waxaan u sheegnay wax alla wixii Soomaaliland ay doonayso arrimaha ku wajahan iyaguna waxayna siiyeen talooyin iyo farsamo aanu ku eegino hindisii ay noo soo dirtay shirkadda Bolora marka arintaas si fiican bay noogu dhacday imikana waxa isku maqan qolada anaga namataleysa la taliyaasha ah iyo shirkadda Bolora oo shirar ku leh dalka Faransiiska oo arintaas sii wadaya marka arintaas halkaas ay maraysaa marka ay Soomaaliland ay aragto oo ku qanacdo in dekedda horumarkeeda iyo shirkaddan uu siday doonaysaa inay iskeenayaan oo u leedahay waxtar iyo dhaqaalaba u leedahay dalka markaas umay dawladda Soomaaliland marka go'aan ka qaadan kartaa laakiin shirkaddan Bolora ma aha shirkad si gaar ah anagu ugu xirina dekedda Berbera ma aha cid alla cidii kale halkan wax nagala qaban karta ayaanu si madax bannaan arrimahan uga la xajoon karaa waxaana dantu dalku tahay inaanu helo cid wax nagu kordhisa oo dhista dekedda dhaqaale keenta farsamo wanaagsan keenta macaash fara badan keenta dekeddana deked weyn oo regionka oo dhan iyo mandaqada oo dhan oo adeegta ka dhigi karta cidaas baan anagu hadhow mustaqbalka aanu heshiis la geli karaa